haddaan wada jir joogno malaa'igta subscribe ku weynoo badinaysa xataa dadka ilkaha u xiran qurbeh ka imaadaan waraxmatullahi wabarakaatu asxaabta dhammaan sidaad u wada jeedaan macaa waxaa ku sugannahay walaasheen xamdi xaali xaafadeeda waxaana janaalka halkaa idinkaga muuqda aad ku wada ballansantihiin sin xaris اوكي كل يوم حافظ انه جالكنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولاشين حمد حالي كسو دواده caawa halkan waxaan ku wada fadhinaa channel badan anagoo ah maadaama aan channel badan nahay videoga waxa loo duubaya waa channelkayga يا حمد حالي حمد اسبوب زينيسا حمد ما اها السلام عليكم سيتهين اخيارتا ku xiran Godar Media meesha naga daawanaysaan waa Godar Media حمد حالي meeshaan ku sugannahay muuqaalkaana maanta waxa loo duubayaa Godar Media حاجة قبطان wax badan aan ka qabnaa isku raacsan su'aalan qaba صح maadaama annaga dhan YouTube lay aan nahay soo ma wada fiicna annagoo dhan inaan sharaad ku wada sameeyno اوكي hadii la isku qabsadayba waxa leenahay dhaxdhaxaad dhaxdan dhigana baash intaan baasha kala goosan lahayn inaan wada jir u cunno sida kale YouTube lay badan maadaama aan nahay meesha ku wada fadhino dadka noo jeeda ani hal mar u wacana okay asxaab la'aana ehes maxaa dhacay dib male walaalkeen talo 10 bilaawatay kali maxaa naga dhigay walaalkeen aniga singolaatina anaga dhabalana waa idin jeedaa soo tala gashan miya caaw oo soo tala jaakada ma jeedido adiga jaakad ma qabtaan markaa jaakad meel la ay xiran ina xariis walaalkeen horta soo dhawow Waa mahadsantahay. xamdi xaali hooyada qaranka iyo hooyada channelada dhan waatana qaran ma gaarin laakiin hooyada qaranka. hooyada waxaan ahay YouTube-leyda aan jeclahay inaan midowno oo si wanaagsan dhalinyaradayda soo koraysa anigana aan hooyo u noqdo Masha Allah. wanaagana aan isfarno Masha Allah. wixii xun aan iska reebno Masha Allah. sidaasaan jeclahay go-aan waxaan qaadan doonaa caawo maadaama aan si wada bulshaha meesha u wada joogno reer YouTube lay adduunyada waan aragnaa haddii ay Turki tahay hadday Mareykan tahay iyo hadday Ingiriis tahay ama Malaysia ay tahay maasha Allah waa la isku wada duuban yahay laakiin reer Nairobi waxaad u moodaa nin walbaba ninka kale inuu ka cararayo sidaas darteed waxaan halkan jeclaan lahaa inaan abuurno bahwadaag wax la yiraahdo bahwadaagaas oo ah keena liita kan kale inuu kaabo keena weyna kan kale ka hooseeyo inuu eego sababtoo ah waa xadiis dhan waxaan ku hadlaayay rasuulka sallallahu alayhi wasallam yiri kiina hooseeyo inuu kan weyn fiiriyo kan kalena inuu kan kale garab qabto maadaama xirfadley aan wada nahay ama saxaafadda aan ku wada jirno hadday ahaan lahayd social media ama barta YouTube-ka aan u wada baahannahay si wada jir oo kale inaan inta u wada imaano iswada caawino qofka kale uu ka roon yahay uu caawiyo si group loo imaado la iswada caawiyo qofka cilmiga uu ka dhiriyaa qofka kalena uu u faa'iideeyo aan si asxaab u wada noqono dabcan waxaan u maleeyaa caawa inay tahay asxaabtii ugu horeysay ee si wada jira reer YouTube lay Nairobi waliba xataa markaan dhaho asxaabtii ugu horeysay intay si wada jir u imaaday arrintan awaabushay inay tahay insha Allah ta'ala waxaana sii wadi doonaa inaan isku wada wacno inta aqli galka oo saaxiibka ah ee YouTube layda inaan hal bahwadaag ka wada dhigno taasoo qofka xataa ay noqoto kan camera haysan in camerada laga caawiyo ka subscribe ku yaraya subscribe ka lagu caawiyo ka like ku yartay sidoo kale commentiga iyo share-ka haday noqoto asxaabta editing iyo waxaas oo dhan intoodaba inaan wada qaadano wariyaasha hal dhibay qabaan haday meel imaadaan ayagoo marti ah ayaga iska qaadanaya microphone kamana dhigayaan والله بالله qodobada waan ugu socotay walaalkeen si naxariis leh waa nin legend ah aad taqaanaan bulshada horta magaca kaliya uu Sliim ku nool magaca uu sito maya si naxariis leh Si- Soomaalida naxariis leh. waxa la yiri ma taqaanaa Waa kooda yar iyo kooda weynba ha si naxariis leh ha hadaan wax ugu sheegin aniga waxaan maqli jiray waxaan si naxariis la kaaga codsanayaa si naxariis leh naftiisa caaw qoor fadhiyo si naxariis la joogo caawa waxaan si naxariis la kaaga codsanayaa inaad soo dhawaato si naxariis leh anna waxaa idinkaga codsanayaa inaad channelkayga soo booqataan subscribe-ta like-ta share-ka commentiga inta wada qaadataan anna si naxariis leh waxaa idinkugu caawin doonaa inaan subscribe-ta like-ta share-ka iyo commentiga waliba community-ga aan idin siin dheereeyo because of meeshaas ku wada faa'iideysano si fiican salaantaas iyo wada sheekaysiga markaan kasoo gudubno waxaan rabaa hadalka haddaad dhaysan waxaan rabaa inaan yara adkeeyo okay walaalkeen si naxariis leh soo hore idinkugu sheego badanaa dadka YouTube leyda ah ee ka baxsan Africa
waxay suubiyaan discussion dhexdooda inay isku imaadaan intii isku meel joogtaba qaarkood hadda la daawanayo waxaa ka baqaya discussion inay fahmi waayaan oo u Soomaaliyeynayna inay wada xaajood qaataan ama wada hadal ay qaataan meel isugu wada imaadaan noot neew ingiriiska neew mana aqaano ku dheh erayaa iga soo boodanayo ma idin malaha ina qurbaha ka soo laabtaa xogaa aan xataa ku maleynayo qurba inta qurba igu filan meel kale oo socdo marka dadku walaalahiin si isku garab istaagaan intuu sheegay darada idee soo socdaa waa socdaabo waa socdaa Soomaa ma aan ina soo laabtaa u maleynayo maya because of style-ka iyo labiska iyo xataa dadka ilka u xiran qurbaha ka imaadaan saas u sheegay baasaboorka iga dhici rabo waxaan rabaa inaan baxo baasaboorka soo cusboonaysiisto dan aan soo laabto inta aan soo noqonayo qof idinkaga sii tagaya booskayga idin sii buuxiyo maasha Allah garanayo marka sheekadan Afrika idinka ay ugu heesaan ilaahay ka sokow idinka ma tagay kareed Soomaa marka walaalkeen si naxariis la isoo sheegaybo dadka asxaabta YouTube ku nool Nairobi qaasatan haday noqon leedahay Islii haday noqon leedahay xaafadaha kale iskaashigu aad aad buu muhiim u yahay sad u jeedaan meeshan waxa fadhiyo dhan waa wada YouTube lay waana isku wada baahan yahay dadkoo dhan kan camera haysan camera lagu saacideeyo kii muxuu ahaayay editing aanan aqoonin ama aanan haysan baqarabki in qalabka lagu saacideeyo intaan awoodno because of markan annaga aan unity aan noqono dad isku xiran aan noqono ayaan horumar gaari karnaa haddii Ilaahay yiraahdo walaalkeen si naxariis leh marna waa YouTube lay marna waa nin siyaasi ah marna waa nin wariye ah meesha aan joogo YouTube way meesha ka ma waxaan rabaa dadka inaan zaid u faahfaahiyo caawa waa kulankeena ugu horeeyay laakiin ma aha kulankeena ugu dambeeyay insha Allah wada shaqeyn doonaa haddii Ilaahay yiraahdo hadalku yiraahdana hal xoojiyo insha Allah waana ka dhameyn doonaa haddii Ilaahay yiraahdo baxda intaan way ka weynaan doontaa haddii Ilaahay yiraahdo mar waxa dhici doonta hal camera in wada qaadi weyso ودهنا وما جدنا قفك حقك كم ضياوه مركز درونا أديكسن دونا إن شاء الله هدي ولا حريص له جنال كانوا يجوا مركز عاد فتح واحد جرت تيذا كله سومالي ما أقانو هل علذين لنا واحد جرت الشيء دتك وكمان أو أي وذاقان لكن على سكعاوين خاصة دتك يوتيوب ليدا waxaad idinku dhahdeen midba midka kale uu ka carraa waxa kale oo jirto I don't know laakiin ani Soomaaliya ku arkay anaga reer Nairobi ahaan waxa kaga fiicana waxa weeye isma qabsano si fiican nin waliba wuxuu soo gudbin lahaa ayuu ku mashquula laakiin intaan inkastoo is qabsiga karona waxa kale oo jirta wax la yiraahdo xogaa khayr baa jiray reer waqooyi ma fahanti xogaa waxaad muddo dadkii maartay in si yar isku gargaar dhigaya ha waa ileen igada soo marka waxaan dhihi lahaa ama magac weyn hayso ama magac yar hayso ka xitaa caaw YouTube ka bilaabayo yani waxa inuu garab qowd u baahan sababtu xitaa Soomaaliya macnaha heesta qaranka waxay ahayd Soomaaliya tooso isku tiirsada hadba kiina taageeran Donald Trump xitaa fiisaha waa ku adkeyn lahaa hadda intaas bas hadba kiina taageeran wallahi beena oo maleysa absolutely wallahi hadba kiina taageeran taageer weligin hadda intaas kaliya haddaan ku dhaqmi lahayn Donald Trump waa diiday waa tarxiil la abta laakiin dhibaatada meesha naga haysato waxyaabo badan anaga isku keena toosay saas darteed waxyaabeen isku keena toosay cilad nagu aha u maleena heesaha calanka markii la dhaho heesteena si qiirad leh uga hadlaysa heesaha kale markii la fiiriyo calamada markii la soo qaato calankeena ka dhex muuqda calamada kale dad ahaan markii la ku weydiinaha mar heesta calanka qaad Soomaaliya tooso isku tiirsada ma ahan caalanyo ma taasna ma hadda maxaa waa ka diida ma heesta calanka wala isku dhageeyaha okay ina sheeg marin أنا واحد أنا كنا بنسير بعيد على هاي إيه دمستراي يعني عنك دلوا عينه إنه كريم وعيركو كاري إن عاشنا لهي إن عاشقي والله عندي واقي والله الله ها تيش على tilmaamo amba هاي marka sida ana hawsha idin waday yani wax walba dadka waa kaga duganahay qowmiyadaha kale markii la fiiriyo qowmiyada kaliya haddaysan laba ahayn kow ay tahay Soomaali waa ayaan dhigi karaa oo adduunka meel kasta hadii la tago aan laga helaynin qowmiyada kale oo nagu soo agdha dhawaanaysaan isleeyahay way jirtaa waxaan ku shakinayaa ma China ama waa India because of tira badnaanta markii loo fiiriyo labadaas qowmiyadooda waxa la yiraahdaa dadka kale soo xigaan marka saas darteed
maadaama ummad unique aan nahay haddana waxaan isku haysana kaliya waxa waaye adduunyada waa gumaysan lahayn laakiin innagaa isku maqan ani xamdi aa fiirina xamdi diini aa fiirine diini cabdifataax uu fiirinaya cabdifataaxna waa kaasa waa la isku wada dhagan yahay marka haddii cimaamada la isu dayn lahaa mar hore wax la gaari lahaa saas darteed waxaa idinka codsanayaa geeskaas waxaa jiro oo farteeda hoosteeda ku aadan Godir Media sheekada haddaa rabtaan inaan idiin sii wado subscribe sii saara marka taa kasoo noqotaan weli waa laydinku dhagan yahay dhexda haddana waxaa ku jirto oo aa ujeedaan walaasheen xamdi xaali ayada subscribe-ka waxaa subscribe كلمة وليبا هلا سي شير قرية وعن ربنا مدة من دحدود إن ما لا يبلغ هدول عيرة إن شاء الله haddan sheekada markii idin sii dhamaystiraya marka saas darteed caawa waxa kaliya aan isugu imaano waxay ahayd inaan walaalahayna baraarujino dadka isugu yeerno una sheegno fariintan qaaliga aan sidno taasoo ah in la is caawiyo in la is kaalmeeyo horta agteeda wallahi horta qiimo gooni oo kale ما شاء Wuu الله ka wada leeyahay أنا قدم brother adinka dhan waa laakiin ani ahaantaydan kasii hadlayaa Haya. idii palmar sababtoo ah social media markaan kusoo biira muuqaalka ugu horreeyay ee social media aniga aan leeyahay soo gala dad fara badan facekii xilligan sidoo ahaa iyo hadda iskuma eko si fiican hataa uma muda isma dhahayaan cabdifataax waaye si fiican filimkaas wuxuu ahaa filimka calanka anigii yar saaxiibkii la yidhaha zakariya ayaa soo saarnay raaga cabdi saaxiibkeen intaan ka salaamaya asagana wuxuu ahaa producerkeeni filimkaas soo saaray si fiican I don't know inaa aragteen wiil laba wiil aniga iyo zaki oo isku dagaalayna qabiil si fiican adigoo reer kansax lahaa inta kasoo doontay adigoo roo qurac lahaa inta kasoo doontay si wanaagsan kadib aan isku boodayn Aan daawaday, annagoo isdagaalayna kadib baa calanka cirka kasoo dhacaya calanka markuu cirka kasoo dhaco dee wax kastaba wax baa ka weyn xijaabka burdaha ka weyn baa la yidhi soo ma si fiican waxaan u ordaynaa xagga ayaa calankiyaa soo qaadanayna marka calankii aan ku wada midoobeyna markaan calanka ku wada midoobno oo garbaha saarnaa waxaa imaanaya roob macnaheed muhiimadda waxay ahayd sheekada haddaynu midoobno wax kasta waan helaynaa aan midoobno aan iska dayna waxyaalahan hoose aan dhahayna muxuu ahaay adigu reer hebel iyo adiga reer hebel baa waayo sababtoo ah ilaahay subxaana watacaala markuu irsaaqada bixinaayo malaguu soo diraa malagaa markuu soo diraayo malaa'igta waxay imaadaan laba xilli salaada subax iyo salaada casirka salaada casirka malaa'ig baa baxdo oo way isbedeshaa wufuudda alle malaa'igna way imaadaa malaa'igta imaanaysa salaad subax ay imaanay salaada subax markay imaanaysa malaa'igtaas waxay ku imaanaysaa labadii walaalo ah inay irsaq wax isugu darto ay u badiso labadii isnacabna inay ka qaado aysan waxba siinin ka waran balla hadda bahashii aan sii af soomaaliyeeye haddaan wada jir joogno malaa'igta subscribe-ka way noo badinaysa والله ورتيزو سنة عريزة wax kasto waa qadar ilaahay horta si fiican subscribe ka qofka inuu maanta ku subscribe gareeyo waa qadar ilaahay qadar ilaahay waay marka dadku ma haystaan laakiin ha macnaheedu de wada jirkii iyo wanaagga markaan isu wada imaano ilaahay baa dadkii noo adeejinaya qofkaas quluubta raxmada loo gelinaa waxaa leeyahay walaalahan isjecel ee youtube-ka ku jira u badi adoonan rabinaa fartaada la xukuma meesha gaduudan adoo raali ka eenaa dhag siine marka intee ka imaaday min allahi xaggeeda ka imaaday so marka waxa waaye markii wada jir la yahay irsaaqada waa la badiyaa waa sax waaye markii kale kali la yahayna way yartahay saas darteed walaashay xaali hadaaye hal kelmad ee tiraada rabaa inaan ka dhawaajiyo Soomaalidu waxay tiraahdaa si xun wax u sheeg sixir waa ka dareeyaa taasaan beenahay shaygan mobile la yiraahdaa asaga kaliya markaan faahfaahin idinka soo qaato 2009 muddo dheer ma aha 10 sano laga joogaa 2009 culimada xataa waxay diidi jireen in sawir laga qaado iyo in video laga duubo waxay dhihi jireen xaraam waaye sawirka yaan la soo gelin guriga yaa lagu dhajin malaa'igta ma soo gelayso video yaa laga duubin ha sameynin totally okay waa aamusay waan qaatay xilli kadib ilaahay 10 sano kadib markii la soo wareegay waxaan arkay culimadii oo YouTube dhex joogto ayagii wax faafinaya waxaan isiri malaa'ig cusub ma imaanin nabi cusub lama keenin diin cusub ma imaanin shalay way loo diiday maanta loo ogolaaday wacyiga waxaa ka soo galaya ee technology-da inay diinta la socoto loo baahan yahay because of mar aan wareysanayo Sheekh Cabdul Xayi
sheekh cabdulxay markaan wareysanayo sheekh wuxuu ahaa aada khudbadihiisa loo jecel yahay dadkana dhegaystaan masaajidka uu ka khudbeynayo muqdisho ku yaalaa xaafad ka mid uu ku yaalaa dadka dhegaysanayana Australia iyo Nairobi iyo Kenya iyo Mareykanka iyo Atlantic kala joogaan yaa gaarsiiya fariintaas diiniga social media haddii uusan asaga social media ogolaan lahayn oo masaajidkiisa kale ka khudbayn lahaa ninka dariska la xataa ma maqleen because of inta masaajidka kale ku jiro bisa maqli lahaa awoodda ay leedahay social media in wanaag looga faa'iido ilaahay gaaladan anagu noo soo adeejiyay teknolojiyadan dadka soo saaray eega waay laakiin anaga inaan si wanaagsan u faa'iideysan rabnaa maadaama aan si wanaagsan u faa'iideynayno door walba loo baahan yahay xamdi xaali hooyo waaye haween waaye waxaa la rabaa inay caawiso gabdhaha aan aqoonin cunno kariska gabdhaha aan jaanisku u helin inay gogashooda firaashtaan ama sida loo waxeeyo designka waxaas oo dhan cilmi loo baahan yahay in la barto waay uduga ama carafta uduga iyo carafta waa loo baahan yahay waxaas oo haddaan kaa dhex galo adaa wadatay xamdi xaali maalin baa waxay karinaysay keeg oo la yirahdo zebra cake marka waxyaalo fara badan bay isku dardartay hagaajisay ana waxaan bislaaba keega noocaan hadda laguma soo bin karo si fiican haddii anay la dhihi lahaa keegaasaa loo baahan yahay darabaadaan diri lahaa keeg adiga hadda ayaan kugu daalanay macaankiisa iyo dhadhankiisa laga yaabay bay soo bis markaas waxaan ku dhahay noo la kaftame gabadhan guursan doono insha allah bil training aan ku keenaa kula joogto maasha allah marka saa u la socotaan waxa waaye ragga laftirkooda yaa u diiday inay wax kariyaan cid uma diidin waayo ayaga laftirkooda inay bartaan la rabaa marka qof walbo jaaniskaas rabo qof walbo jaanisku ka caawinaa walaalkeen wuxuu soo dhigaa riwaayadahaas maxay tahay isweydii wacyigelin waayo qof ay noloshiisa ku saabsan tahay riwaayadaas wacyigelinaysaa asaga saameyn noloshiisa ku noqonay marka qof walba oo arkaysid YouTube soo galaayo maskaxdiisa wixii ka guuxayo adigu kula wadaaga dukaan uu furan karaa farmashi uu furan karaa isbitaal uu furan karaa wax walba uu sameyn lahaa wuxuu uga soo tagay inuu adigu wacyigeliyo adoo waqti ku soo galiyay adigii lagu waaninayo wacdi lagu galiyo waqtiga lagu soo galiyay hadaa aad feedback aad siinaysid ama jawaab celiska aad siinaysid haduu noqdo mid aad ku niyad jabisid cid hore u soconaysa male kaligaana looma istaagayo hawsha way soconaysaa laakiin waxaan idinka codsanayaa inaad dhanka wanaag u badataan qisada aan soo qaatay intaa jarjartaanna si xun ha u isticmaalna culimadu kuma dhegani social media waa awood loogu talagalay in maxaa la yidhahdaa wanaag lagu faafiyo horta aad baa mahadsan tahay hooyo xamdi inuu waa hooyadan Soomaa si wanaagsan dhaqanka Soomaalida xoogaa maartay waxaad moodaa sometimes marka si u fiirisay horta dhaqanka fiican ma laha haddana waxaad moodaa inuu si maartay u adag yahay hadda maanta fiiri ana cilmiga igu jira haddaan adig ku siinin adigana ku jira aanan qaadanin bulshada waxba macnaha waxba ma noqonayso yani waxba ma faa'iido adna waxba ma faa'iideysin marka ma xoogaa maamadu waxa yani waan ogeyn qisada hadda sheegaysay qofku waa yartahay YouTube lay hadda maanta waliba marwa ah oo ma sha Allah oo gabdhihii wax baraysa oo dadkii wax baraysa si fiican marka bulshada dhan wax baraysa dadka kaliya ma leeyahay because raga xataa waa faa'iideysan waxaan ka faa'iideysto waxay tahay uduga ay sameynayso gurigeyga inaan xaaskeyga ani laftirkeyga u carfiyo ما شاء الله ما دحس waxaan caday marad sameynay riwaayad ka turjumasa يعني انجلش dadku markay qof basi uu yaqaan follow me ninkan ay yaqaan maybe inaad aragtaa laga yaabaa si fiican gabadha marka waxay leedahay Instagram iyo waxba la sheegaya si fiican marka follow me ilaa waa iska daba kacaya marka haye soo marka anagoo sheekadii ku dhex jirna macnaha waxbay ka turjumasay qisadaasi marka anagoo sheekadii hawshii dhexda ka jirna alxamdulillah horta markaasna ay soo gabagabowdahay ay gabagaba tahay baanan odayanooyin qaylo baba dambi baa ku jirtaan waalidin cadaab waxyaalo maartay xitaa qofka dad wax u sheegayso imaam Ahmed wuxuu yiri imaam Shaafici wuxuu yiri hadii xitaa qofku khayr uu ii sheegay waxaan jeclahay inuu gooni iigu sheego soo marka ninkii wuxuu dhahay dambi baa ku jirtaan in leedin cadaabay soo moogid annagana markaas bulshada waxaan u sameeynay wacyigelin soo marka hooyana sidoo kale maxay sameynaysaa wacyigelin waliba gabdhaha wax baraysa inagu rag badan ribaadiyal bas kana waa iska soconaa moogtahay laakiin gabdhaha iyo qoyska asaas dumar way ka faa'iideysan karaan ha way ka faa'iideysan gabar kaliya waayo birita ka maalin markaad xaas yeelato oo guri yeelato hooyooyinka caqabado badan ay maraan xilli waxa waaye waaba culimadaaba ka hadashaba xilli waa iska macduur oo xaaladeeda iska jawigeeda iska kacsan xilli waa walacaysaa oo maxay ahayd inay adiga wax kugu karayso ma awoodo inay ilmihii iyo gurigii maamulkiisii
naftay dhibaysaa laakiin culaysyo badan iyo caqabado badan ay dareemaysaa jirto xilli waa umul xilli way culus tahay oo waxaa laga yaabaa wax dhulka kaga dhacay inaysan awoodin intay foorarsato inay soo qabsato marka waxaa lagaa rabaa markaas adiga naftirkaaga inaad u muujisid xaaskaaga ilaan culayska ay sido ayada keliya nafteedu ma wado qofka maxay ahayd ay faa'iidadaas ay wadaagayaan waa adiga marka adiga naftirkaaga waxaa lagaa rabaa inaad ka faa'iidaysato youtube-ka gasho fiiriso waxyaabaha cuntooyinka sida loo kariyo gabdhaha waxyaabaha ay soo geliyaan gabdho badanaa soo geliyaan youtube oo cunto karin soo geliyaan oo dadka dhan u faa'iideeyaan rag iyo dumarba waxaa la rabaa waxaas inaad ku tala gasho inaad barato birita ka maalin aad ka caawiso xaaskaaga